seminaarkan oo socday muddo 5 maalmood ah oo lagu baranayay macalinimada isla markaana ay soo qabanqaabisay hay'adda Hirda goobjoogna ay ka ahayd wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. seminaarkan loo soo xiray ku dhawaad 40 arday ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo ay ka mid yihiin agaasimaha waaxda daladaha waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo wakiilka wasaaradda waxbarashada ee dalka Turkiga. Waxa ugu horeyntii halkaas ka hadlay wakiilka hay'adda Hirda ee magaalada Muqdisho Mudane Cabdidaahir Aadan Deeriye oo sheegay inay hay'addu ka caawiso agoonta waxbarashada iyo caafimaadka iyadoo hormuud ka ah horumarinta haweenka iyo dhalinyarada. waxuna tilmaamay in tababarkani ay ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan arday Soomaaliyeed. aan u laabto barnaamijkan waxa nagu dhaliyay in aan fulino waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan duruusta lagu qaadanayo waxay ahayd psychosocial psychology-ga bulshada waxa kale lagu qaadanayay peace education iyo waxa lagu qaadanayay wadaniyada sida loo bari lahaa caruurta. waxaas oo dhan waxay soo koobayeen caruurta Soomaaliyeed ee haysata dhibaatada dagaalada sidii wax loo bari lahaa iyadoo loo fiirinayo dhinac walba iyagoo dagaalku ku jira sidii loogu faa'iideyn lahaa oo duruus fiican ay u qaadan lahaayeen. waxaan filayaa duruustaas 5 maalmood bay socotay. waxaan ugu talagalay 7 maalmood. waxaan ugu talagalay macallimiin far badan. waxaan ugu talagalnay maalmo intaan ka tir badan in ay sii socdaan. laakiin hadda sida ka soo baxday recommendation-kan waxaan u gudbin doonaa ururkanagii kulli way ka soo tashan doonaan talooyinkii aad soo gudbiseen oo u gudbin doonaa haddii alla idmana waa idinku soo celin doonaa waxay soo yiraahdaan. waxay kaloo caawisaa agoonta oo iskuulada ka bixiso. waxay caawisaa gabdhaha aan iska bixin karin school fee si loogu dhiirigeliyo gabdhaha iskuulada tagaan. waxay kaloo wax ka qabataa dhismaha iskuulada. waxay wax ka qabataa school hygiene and sanitation. waxay wax ka qabataa horumarinta haweenka. waxay wax ka qabataa dhalinyarada horumarintooda sportiga iyo nabad si loogu dhiirigelin lahaa. sidoo kale waxa isna seminaarkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda daladaha waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare isagoo hoosta ka hariiqay inay wasaaraddu ay dhawaan dhisayso xarun ay leeyihiin macallimiinta iyadoo qorshaha soo socda ee wasaaraduna ay ugu horeyso tababarka macalinimada. boolisiga ugu horeeya ee wasaaradda u degsan qorshaha ugu horeeya wuxuu noqonayaa tababar macallimiin. maxaa yeelay meesha hadda aan ka dhimanay arday way joogaan iskuulada way furan yihiin. waxaad ogsoontiin dalka waxaa ku yaala 10 daladood. 10kaas daladood waxa waaye arday iyo macallimiin intaba way buuxaan. hase ahaatee waxaa maqan quality macallinka maqan. quality macallin haddaan la helin waxaan la helaynin arday quality lama helayo. markaasna waxaa sii dhimanaya waxbarashadii iyo horumarkii aan gaarayna meel ma gaarayso. insha Allah waxaan rajaynaynaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxay hadda dhisaysaa dhawaan oo loo ballan qaaday in loo dhisayo ITT meel yiraahdo xarun tababar macallin. ugu dambeyntii waxaa halkaasi iyana ka hadashay Samsam Daahir Maxamed oo ayadu sharaxaysa wixii ay ka faa'iideysatay intuu seminaarku socday. waxaan lagu qaadanayay barnaamijka 2 maado aad muhiim ah psychosocial iyo peace education iyo civic wadaninimada. waxaan dhihi lahay aad ayaan uga faa'iideysanay siiba qaybta wadaninimada. waa qayb naga maqneed anaga wadankeena anagu aqoonin ayaa aad maaragtay maalmahan la soo dhaaf wax fiican oo wadankeena ku saabsan wadankeena wuxuu ka kooban yahay kheyraadku leeyahay kulli in ay muhiim tahay in ardayda u sii gudbino ardayda la baro. tan kale barnaamijkan kale oo psychosocial-ka wuxuu ka qayb qaadanaa ardayga ku nool xaaladdan Soomaaliya oo kale ee conflict area ama risk area oo kale wax ku baranaya in maaragtay muhiimadda la saarin oo kaliya in ardayga casharka loo gudbiyo ee laga hormaray in ardayga la dejiyo xaaladiisa. seminaarkan ayaa ka qayb ah dhiirigelinta iyo dadaalada ay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda Hirda ugu jiraan sare u qaadida waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee la daala dhacaya waxbarasho la'aanta ka jira dalka Soomaaliya oo ay sababeen colaadaha daba dheeraaday. Saciid Maxamed Xasan, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.